ninkan ayaa deer Zakir Naik su'aal la soo weydiinaya oo weydiiyay qof aan muslim ahayn taasoo ah sababta uusan Allah islaamka uusan isku muujin. Deer Zakir Naik ayaa ka jawaabaya su'aashan. Brother asked a question that one of his non-Muslim friends walaalku wuxuuna weydiiyay su'aal ay weydiiyeen mid ka mid ah asxaabtiisa oo aan muslim ahayn. waxay weydiiyeen su'aasha ah sababta uu Allah islaamka uusan isku muujin. She asked him the question that why doesn't Allah, the God in Islam, show himself? Like in other religions, they can see God. Why don't you? sida diimaha kale way arki karaan ilaahooda, haddaba waa maxay sababtan u arki laanahay ilaah? The reason is that Allah subhanahu wa ta'ala in Islam is the true Allah subhanahu wa ta'ala. If he shows himself, you will not be able to live. sababta waxay tahay ilaaha islaamka waa ilaaha dhabta ah. haddii uu muujiyo nafsadiisa ma awoodaysid inaad noolaato. You will not be able to live. He's so powerful. And the example we have in the Quran in Surah Taha, then Musa alayhi salam says, "Oh Allah subhanahu wa ta'ala, I want to see you." So Allah says, "I will show my glimpse to the mountain. You look what happens to the mountain." So when Musa alayhi salam turns his head to the mountain, Allah shows his glimpse to the mountain and Musa alayhi salam faints. That is the power of Allah. aad ayuu u awood badan yahay. tusaalaha ku yaala quraanka suuratu Acraaf markuu nabi Muuse calayhi salaam yiri eebo waxaan rabaa inaan ku arko, marka Allah wuxuu dhahay wax yaroo iga mid ah ayaan ku tusin doonaa buurta ee fiiri buurta waxa ku dhaca. marka Muuse wuxuu u jeestay buurta, Allah wax yaroo ka mid ah ayuu buurta tusay, kadibna Muuse wuu sooxay. waa taas awoodda Allah. That is the power of Allah. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه markuu yimid Muuse ballankaanagii oo la hadlay eebihiis wuxuu yiri وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك إبو إتس أنكو أركي قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني وحيري إبي إما أركيسيد ها موسى وأدونك إيقوما أركيسيد ولكن انظر إلى الجبل هسيشي بلدي أو إيك بورتا فإن استقر مكانه فسوف تراني بورتا هدي ماشي كسقناتو مركزات أركي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا مركو بداهري بورتي وحكي لي بربر للجبل جعله دكا للجبل جعله دكا للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا وحان دعيو صوحي نبي موسى فلما أفاق مركو ميرسدي موسى وحويري قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
wuxuu yidhi muuse eebbow adaan nasahan waan kuu toobad keenay waxaana ahay mu'miniinta kan ugu horreeyey waqtigan inaan adduunka lagugu arkaynin. He's so powerful that we human beings in this stage, we cannot see him. haddii aan nahay aadane marxaladan kuma arki karno allah. In this stage, we cannot see him. And the definition of Allah is given in Surah Ikhlas, chapter number 112, verse number 1 to 4, which says, qeexitaanka allah waxay ku talaa suuratul ikhlaas suuradda 112 aayadda 1 ilaa aayadda 4 taasoo dhahaysa Qul huwa Allahu ahad. Says Allah one and only. dheh allah waa mid keliya. Allahu samad. alla waa sayidka deeqtoon. Lam yalid wa lam yulad. lama dhalin waxna ma dhalin. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. wax u dhigma ma jirto oo la mid ah. ilaah haddii wax la barbar dhigo haddii ay jiraan ma ahan ilaah. Not God. So any other religious people say this is God. The moment you can compare God to anything in this world, he is not a true God. This dadka diimaha kale waxay dhahayaan kani waa ilaahay haddii ay jiraan wax la barbar dhigo adduunkan kaasi maaha ilaahay. he is not a true God. This is the four-line definition of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God. Any human being, whichever God he or she worships, if that God fulfills this four-line definition, we agree that entity to be true God. Otherwise, it's not a true God. waa qeexitaan afar sadar ah oo uu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala. dad kasta ilaah kastay caabudaan haddii uu ilaahu fuliyo afartan sadar oo qeexitaanka ah waxaan raacsanahay inuu ilaah sax yahay haddii kale ilaah saxa ma aha. Sayyid Allah one and only. dheh eebba waa keli waana sayidka deeqtoon wax ma dhalin isna lama dhalin wax la mid ahna ma jirto.